nabad daawadayaal meel kastaad joogtaan waa toddobaad kale iyo barnaamijkeennii hindisyaha labuur barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah abwaan macalin sheekh qoraa maxamed xirsi guuleed oo ku magac dheer cabdibashiir waa nin intaa aan idiin sheegay oo dhan markaa iskugu jira laakiinse toddobaadkan waxaanu ka wareysan doonaa xagga halabuurka oo nin halabuurka yaraysta maaha waa nin in badan ku jiray waana rajayn doonaa sugaanta inoo tirin doono inaad xiiseyn doontaan oo in fara badan oo ka midii ay aada markaa u xiiseyn doontaan marka hore abwaan barnaamijka kusoo dhowo baan ka odhan lahaa aad baad mahadsan tahay muxsin waana dhowaa kolley sheekada waynu goosgoosan doonaa haddii aynu iska bilaabano markaa barnaamijkeena bal xilli maheed waktigii kuugu horreysay ee maskaxdaada ay wax kasoo sugaantu kasoo burqatay sida runtaa horta waqti dee qofku toos uma garan karo waqtigii ay si fiican laakiin waxaan xasuusan karaa waqtiyadii ay si aan kala go' lahayn u bilaabantay anigoo yaroo caruura oo markaa baadiye jooga da-dayduna qiyaastii ay tahay 9 jir meelaha ayaan xasuustaa midhihii ugu horreeyey iyo ereyadii ugu horreeyey oo wax sugaan u eeg inaan ku hadaaqay ama ku hadlay markaas waxay ahayd aniga oo laygaga tegay ilmo yaroon walaalanahay oo gabadh ahayd oo 2 jir ahayd oo shukri xirsi la yidhaahdo goobtuna ahayd meel bannaan oo adhi aan la joogay ayaa laygaga tugalay walaashay u tiri sii ilaali dabadeedna adhigiibaa kayntii kala galay inanta yar ma qaadi karo waaban waa 2 jiraan 9 jir baan ahay markaan israada adhigii markaa ku yar carro soo celi way ooydaa markaas haddana kusoo noqdaa on ka tegi kari waaya dabadeedna anigoo xaaladda adag ay haysato adhigina kala lumayo inanta yareedna dayacan tahay oo erey ku celcelinaya ayaa waxay dhegaysatay isla walaashii igaga tagtay adhiga marka iyadaa gadaal uga sheekaysay oo tidhi waxaad lahay shukriyey adaa kala shirabi sheekadii yareenka oo aan inanta yar kula hadlaayo ereyadaas oo kale ayaa ugu horreeyey wax maaragtay halabuura kabacdina markii intaa laga sheekeeyey ee dadka qaadaa dhigeen xaafadihii waaban khajilay dabeedna wixii maarata mar dambe gabay iyo waxaa layguma maqal kii sugaanta waan jeclaa beri dambe oo aan ku qiyaasi karo 2000 iyo may lagu qiyaasi karo 1993 meelahaas markaasaa gabayadii ugu horreeyey macno leh ay markaa aan tirtiriyey jirto markaa aanan lana duubi jirin waraaqaha lagu qorqorana iska lumi jireen oo markaa maarata haddana waqtiyadaasaan gabayo doora aan tirtiriyey oo aan ka xasuusto waqti aan xanuunsaday oo 1993 ahayd oo aan lahaa maaratay badanaa walaaluhu markaan baahi loo qabin wixii intaa ka dambeeyey qurbaan galay waxaana ii fududaatay inaan wixii aan tiriyo ama alifo aan kaydin karo ama aan diiwaangelin karo aada iyo aad runtii markaad erayada aad ku bilowday markaad sheegayso waxaa la odhan karaa dee sugaanteedu markaasayba aada u cuslaydba weli waan filaya de xagga qoraalku inuu kaasoo dhex gala ma garanaysa bal haddana waxay isku dayi doonaa maadaama sugaantooda ay batay intii markaa aynu maanta ku cusubsan karna aynu soo qaadano waxaa jira gabay aad tirisi oo la yidhaahdo haddaan anigu qaabeyn lahaa markaa bal hordhac yar ka bixiyo waxaanad qaabeynaysaa ma nolosha ma wax kalaa kabacdin markaa gabayga iyo qaafiyidiisii baad geli doontaa hadii lahaydha aad baad mahadsan tahay muxsin runtii gabayga oo gabayada aan ugu jeclahay buu ka mid yahay gabayadayda haddaan anigu qaabeyn lahaa waa 2001 waqtigu aan tirinayaa waqtigaa waxaan dhiganayay jaamacad ku taalla dalka Sweden waan ka dhiganayay culumta siyaasadda dabadeedna waxaan maaragtay maskaxdaydu ay odhan lahayd haddii aan waddankiina inta badan waan ku xidhnaayo inkastoo aanan joogin haddana waxyaalaha ka dhacaya iyo duruufaha kala duwan iyo siyaasad xumada ka jirta aad baan ula socday ugana warwarsanaa dabadeedna gabaygan aan sameeyo aan leeyahay haddaan anigu qaabeyn lahaa dunida qaybteena macnaha xagga inagu aynu joogno iyo waddankeenna arrintu sidan may ahaateena sidan kale ayay noqon lahay caynkaa wey marka dabcan waa siyaasadda iyo maamulka haddaan anigu marta saameyn aan mal ku lahaan lahaa sidaan u dhaqmi lahaa saas wey marka bal gabaygii markaa sidii uu noqonayay baan doonaynaa daawadayaasha iyo annagu si fiican aan uga dhuganaan doonayay aad baad mahadsan tahay gabaygaas waxaa waa 2001 haddaan anigu qaabeyn lahaa baana laydhaa waxaan u dhacayay sidan
haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qaybteenna qaxar iyo dhibaatiyo malaa qulub ma joogeene qalalaase iyo may jireen qayladhaantaniye qabqab dhaafay waagii baryaba qiiq ma huriyeene qabiil laguma dhaateen dal aan qaadigii ahay haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qaybteenna qowlaysatiyo tuug dhulkii kama qadhaabteene intii kalena qaansiya hangool weli ma qaateene biyuu qaniyad weeyee harraad lalama qaadheene qorraxdii duntaba meel madow lama quluusheene qubanay dhasheennii darxumo uma qisaasmeene qoriddiya kamay saahideen qalin tacliineede qarqaryada habeenkii gidaar qabow ma seexdeene quustiya waxaan biin lahaa qoomamadan baase haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qaybteenna qoqobiyo kumaan kala xidheen qaadhka naylaha ah qaraamiga jacaylkaba naftaan la isu quudhaaye quluubtaan isugu beeri laha hays qadariyeene qaynuunka lama baalmareen qaabka uu yahaye qodobada distoorka ah sidii qaalib lagu doorto qabsoo qowlka eebbiyo sunnaha lama khilaafeene qalad waayi maayee haddaan marar qallooc yeesho wixii qoonaheen falay nin kale kuma qataareene qirashaan ka doorbidi lahaa qarintu waa ceebe haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qaybteenna qasnadiyaa haddaan hayn lahaa qaranka maalkiisa qaad iyo kumaan iibsadeen qaaca buurige qadra kuma aroosteen hantida qaranku leeyiine dadkoo wada qadoodiya anigu qurus ma hiigeen labis quruxle kuma xaawiyeen qaawantoo badane qasri kama dhex tooseen sariir qaaya loo dhigaye afmiishaarna uma qaybiyeen qaanta aadmige bal qabsoo qasdiga aan rabaan soo qadimi laaye qacda hore qolyaha baahan baan quud ka simi laaye qofka qaawan iyo qoyska aan haysan qol u seexdo ayaan dhab ugu qaadhaamin laha nolosha qaybtaase qacda hore qodaalkiiyo dhulkaan qiimogelin laaye qacda kale qodaalkiiyo dhulkaan qiimogelin laaye qaalmihii iyo ceesaamihii iyo dibidan qooqaysa ayaa niman qorsho u soo rakiba qarash ku siin laaye qacda kale warshado qaaliyaan soo qotomin laaye qacda kale markuu uumiyuhu qiro wanaaggeenna ee quursigii hore ammaan qarali soo dhaafto quruxdiiyo qabkiiyo muunadan soo qayixilaaye quruun lagu hirtiye sow markaa qaransan maan taagin sow wixii rag kale uu qarribay qaladkii maan doorin haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qaybteenna waa noocaas waxaanu yacni habka dabaaldegyada iyo fantasiyaha anigu waxba haynin ma soo bandhigeen laakiinse markaan wax qabsado ee aan dee waxaan soo bandhigo aan diyaarsado ama waxaan soo bandhigi karo markaasaan soo bandhigi lahaa lakiin inta hore hawl baan geli lahaa bay ka dhiganta waa kaa marka dee waa gabay aada u qiimo badan laakiin haddii ay talada gacanta kugu jirta baad sidaa yeeli lahayd miya dabcan dee ama talada wax ku yeelan lahayd saas weeye oo haddaan anigu qaabayn lahaa oo haddii talada aan wax ku yeelan lahaa oo talada la isweydiin lahaa sababtu tahay inta badan geyga soomaaliyeed gebi ahaantiiba taladu in yar baa tala maroorsata waxaa xoog ku qabsada afmiishaarka iyo ninka markaa maaragtay qabqablaha ah dadka markaa maaragtay iyagu doonaya waxqabad dhab ah oo daacad ah lama rabo mana soo gaari karaanba oo dariiqyadii oo dhan baa ka awdan sidaas weeye marka yacni waxaan dee markaan anigu nafteyda shakhsiyanka ah oo gaar ah maaha macnaha waxa weeyaan dadkii habboonaa hadday qaban lahaayeen talada sidan ay wax odhan lahaayeen halka ay hadeerto cid kale oon ku habboonayn had iyo jeeraale ay talada maroorsato xoog ku haysato saas wey way rajeynayaan dad fara badan oo gabaygaasi uu gaari doono amaba markaasi gabaygaa daawan doonaa inay wax ku qaadan doonaan haddii inuun markaa siyaasadda ummadda soomaalidana damac kaga jiro inay markaa ku dhaqmi doonaan oo ay wax ka bedeli doonaan waan rajeynaya haddii la haydhaa runtii waxaa jira dee gabayada aad bay u fara badan yihiin oo ka gayoon mayno gabay kalea isaguna jira oo la yidhaahdo layga sugi maayo bal isagana marka hore waxaad isku dayi doontaa marka hore inaad bal sharax ka bixiso si markaa dadku ay macnaha ay u fahmaan waayo dad badanoo waxaa jira aan sugaantii dee furfuri karin oo magaranaysa
markaa in yar baan doonaya yar dul istaagto kabacdi markaa gabayga aad u akhrido. aad baad u mahadsanta. gabaygan qudhiisu waa gabayada maaragtay runtii gabayadeeda ka mid a la odhan karo waa declaration, macnaha waxaan anigu shakhsiyan qofkaan ahay iyo waxaan doonayo weliba ummadda ku wajahan inaan ku sheego. waa 2003 ayuu soo baxay. layga sugi maayana macnaha waxaan ugu arrimo aan markaas hab aan mabda ahaan inaan ku dhaqmo amaba laygu ogaado amaba laygu tilmaamo aan layga sugahayn oo aan de beri ka ahay aan bara ka qaadanaya ama aan ka fogahay. markii ugu horreysay ee ay tixdaasi yani gobo igu soo tidhi waxaan runtii daawanayay telefishin meel baan soo fadhiistay, telefishin baan daawanayay. dabadeedna wadamada muslimiinta ka mid a oo ninkii madaxda u ahaa dhintay ayaa xabaashiisii iyo aaskiisii ayaa markaa maaragtay la gelbinayay, telefishinkii ka socotay marka askar dad kala duwan baa qofkii dhintay ay aad iyo hab maamuus bay iyagu u yaqaanaan, laakiin hab ay aan u arkay inay ka sarraysiiyeen bini aadamnimadii ayay markaa maaragtay dadku u dhaqmayeen. askartu sibay isu taagayeen oo markaa maaragtay gaar ah oo aan dee ila ekaatay cibaado. dabadeedna halkaasuu gobocda koowaad igu soo dhacday. dabeedna waxaan is idhi horta qodobo dadku ku dhaqmaan laakiin aan adiga suurtagalka ahayn maa dadka u sheegtooda gabayga aad sidaa markaa uga dhigta. marka waxaa la dhahdaa layga sugi maayo. gabaygu wuxuu odhanayaa soomaaliyey qodobo aan layga sugahaynin oo aan ka saahiday ayaan saaka qorayaaye sidaa igu ogsoonaada waa sir iyo caadkeede. dharku siinad weeyaan ilaah siiyey aadmiga waa saanad dhaxankaa dugsida siiga iyo boodhe waa suurad laynagu gartiyo sawrac dhaqameede marra waa sitriga cawradiiyo saxiyo muuqaaleh waa waxaynu kaga soocannahay soofka xoolaha ha yeeshee wixii soconayaba qaar sitaa jire sancadii timaadaba anaan saarku ii qabane inaan qoorta sudhatay sidii saancaddaha gaalo oo aan sidaa sharaf ka dayo layga sugi maayo. askaruhu salaantay baxshaan sabankan aan joogno sur la dhiibsho sawdkoo dallacan socodka oo giigsan silic iyo darxumaday mutaan saf isu taaggooda iyaguba sarkaal jaahilay sanam ka yeeshaane in sidooda aan falo wallee layga sugi maayo. ruux kula sinjiya diin ah oo kula ah soomaali ruux kula sinjiya diin ah oo kula ah soomaali oo aan wax lagu sooci karo sinaba loo haynin oo waa sab weeyaan la yidhi laga santaagayo waa sawrac laynagu gartiyo dhaqan siloonaane soof daran habowgaas in aan qiil u dayo saaka oo aan sidiqo daakirow layga sugi maayo. macnaha dadka qaar baa odhanaya sababta maaragtay dadkan loo takooray ama sidan loogu sameeyey waxa weeye waa sidan iyo sidanay beri sameeyeenoo dadkay beri caynkan ula dhaqmeenoo caynka waxyaalahaasoo dhan waa soof daran habow waa camal shaydaan qiila looma samayn karo sidiisaba maba ahaba. waa ilahay bal walaqad karamnaa bani aadam ilaahay bini aadamkao dhan buu karaameeyey aabba quru ka wada abuuriyo hooye keliya. waxyaalaha la sheegaya marka qiil wax loo samayn kara maaha. kaa soof daran habowgaas in aan qiil u dayo saaka oo aan sidiqo daakirow layga sugi maayo. nin kastaba sid baa lagu dhaliya tiro sagaalaade waxa saamigayga ah inaan kula sinaadaaye adna inaan sarraynkaa aqbalo layga sugi maayo. salkii laga unkamay xaawo iyo aadan saracooda sees keliya weeyaan dad aan saxaris dheerayne kala suuradiyo luqadu waa siro ilaahaye sabab maaha qaarkoodba qaar kaga sadroonyiin ha yeeshee dar ay seegtayoo saas qabaa jire saf inaan la soo galo kuwaa layga sugi maayo. surimada hawaas iyo markaan adari suureeyo sabawacan garduur iyo ilaatan iyo siidaamo marka aan siyalow fiirsadiyo sohdimaha dhooblay ama cali sabiix iyo ashica sax uga faalloodo
ayaan sirin sirqoodaa nin ciil saaqay baan ahaye sifahay gumaystuhu damceen laygu socodsiiye soomaali kala qaybinteedu waa kuwaa sugaye balse inaan sahaalo u aqbalo layga sugi maayo nabad baa sareediya iskale seexasho yarayne sigashana dagaal baa iskale seefa loo tumaye sariir kuma dangiigsada nim ay ragiisa seegeene anna saymo waan soo arkiya suudha diriireede intuu soodhku igu foororsaday salalay dhowr jeere sacabada colaad inaan u tumo layga sugi maayo sodohaa cadhoodee haddeer socodka dayn waayey sannifaadda dumarkaa raggii suufay jiridooda ee dhaqankiisa ujadi lahayd saydhay badankiisa ee yidhi siniin iyo miniin silicii naa gaadhay sababteeda nimankaa lahaa oo sarrayn jiraye suxullada intaa qaawisaan saablaydiiyo foodda waa in laba saf dumarkiiyo raggii laysu kala sooco sifafaale aakhiru samaan sida ah weeyaane amba waan saluugsanay waxay silic mutaysteene safka horena waan ugu jiraa sidan ha dhaameene balse dhaqanka kii saxan ka sugan kii sunniya diina ku safaada oo aan idhaa layga sugi maayo subaxdii timaadaba dantaa lagu sargooyaaye salli iyo adoon heli karayn dhaxanta suuf biiya inaad daar sallaxan raadisaa maaha dow saxane sirta noloshu waa adiga oon seexan kari waayin anna samada maaliyaal inaan uba saruuroodo ama saami ruux kale u dudo layga sugi maayo waxaas aan ka saahiday dadyow saacidaa jire waxyow aan sameeyana dar baan siisanayn lacage sow inuu midkaayuun sax yahay sadar ma qeexayo kaasina waa gabaygii layga sugi maayo oo ah 10 qodob oo aan layga sugahayn welina mowqifkaygii ismuu bedelin 20 sano ka bacdi haddii aynu xagga gabayada ka soo noqonno oo waxaad ka warantaa waqtigan maanta aynu joogno nin kasta oo wax tiriya dadkii waxay oranayaan waa abwaan waa bal abwaanku yaa la odhan karaa qofkaasi waa abwaan runtii abwaan dee waxa qeexay dadkii hore ama dadkii waaweynaaye naga waaweynaa ayaa tilmaamay oo tilmaanta ay ka bixiyeen iyo tilmaanta dadku hadda ay u haystaan way kala yara duwanta abwaanku waa sidii qof diiwaan ah oo kale ama maansaha curiya ama yaanu curinin waa qof diiwaan ah oo dhaqanka yaqaan oo taariikhda yaqaan oo dadka yaqaan oo mashaakilka kala duwani marka ay soo baxaan yacni afkiisa ay ku xallismaan qasab maaha inuu iskuulla dhigtay qasab maaha inuu gabaya curiyo laakiinse waa qofka marka ay xaaladii ay jiq noqoto kala fardaamin kara xigmadiisa iyo waayo-aragnimadiisa ku kala fardaamin kara kaasaa la yidhaahdaa mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa macnaha abwaanku waa qof baab kasta oo ka mida baababka kala duwan ee hal abuurka geli kara waxna kasoo marka ka alifi kara kaasna waa lagu macneeyey marka dee dadka iminka gabay tirinaya ama buug qoraya in abwaan lagu sheegaa waxaan u malaynayaa inay tahay dulmiguna wax kala maaha sidiisaba waa wadcu shayin fii kayri mawdicih in shay la dhigo meelaan meeshiisii ahayn cankaa weyde ninku waxbuu tiriyey gabayaduu tiriya ha la yidhahdo maansaduu tiriyaa buwaagtuu qoraa waxaa ha lagu sheego laakiin darajadaas waa darajo sare cankaa wey aad iyo aad baad u mahadsantay toddobaadkan barnaamijkeenii hindisii hal abuur oo martida ku ahaa abwaan maxamed xirsi guuleed oo ku magac dheer cabdibashiir aad baad u mahadsantay abwaan intaynu barnaamijkan iyo barnaamij lamid ah ku kulmi doonno waxaan kaga teganaa sidaas yaa maano alla iyo kulan dambe oo xiisa leh